Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay kulan ku yeesheen Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaana kulankooda ay uga hadleen arrimo dhowr ah. Kulanka musharaxiinta madaxweynaha ayaa waxay uga hadleen xaaladda dalka iyo doorashooyinkii dhacdooyinkii dalka ka dhacay kadib shirkii ay dhowaan yeesheen sida qaraxyada iyo hadalkii xanafta lahaa ee uu sheegay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir. Wararka la helayo ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in shirkan uu dhac u yahay kulamo xiriir ah oo musharaxiintu ay ku dardargelinayaan dadaalada loogu jiro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku qabsoonta. Wararka kale ayaa waxay sheegayaan in caawa Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ay warbaahinta la hadli doonaan iyaga oo ka hadli doona dhacdooyinkii dalka ka dhacay sidoo kalena ay jawaab ka bixinayaan hadalkii Gudoomiyaha Gobolka Banaadir. Dhowaan shir muddo u socday Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ku baaqeen in la kala diro guddiga doorashooyinka sidoo kalena uu xilka baneeyo taliyaha NISA balse ilaa iyo hadda Villa Soomaaliya aysan ka jawaabin baaqaasi.